kitaab yar baan soo wadaa hadda oo aan macallimiin kaga sheekeynayo adduunyada galay iyo wixii ku dhacay waa qiso waa cibra iyaga iga sheekeeyay ma garanaysa macallin qur'aankii dhigaya oo fiican oo dugsigii dadkii baraya oo ilaahay cod siiyey oo ilaahay qur'aankii siiyey waa wuxuu ugu yidhi maalin dambe waxaan arkaa rag xoogaa lacag kale rogaya akawnadooda xagga waxbaa soo mara lacag baa soo mara intaan oo kun oo dollar markaasuu yidhi warhaadha meesha maxaad la fadhida aniga haddaba bahasha rabto dee soo fuul taraag bay yidhaahdeen fuul buu yidhi gaari taraagyada ma taqaanin la wado baabuurka isjiidyada ya batroolka iyo qaad trailer bay yidhahdeen soo fuul wadaadkii intuu musaxafkii meesha dhigay ardaydiina uga tegay wuxuu yidhi halka igu sii suga jamaacadii ya meeshaan lacag kama soo socotay lacag baa la sheegay wuxuu ugu yidhi 2 sano baan ku jiray oo aanan xalqadna fariisan xalqadna aanan wadin 2 bilood markaan waday waa wax lagu imtixaamaya gaarigu dhexda maalinba meel fariista maalin waa banjar xoogaa markaan soo shaqeeyo bir baa jaban xagga markaan xoogaa ka soo qaado isagii baa cuna maalinta dambe anuu ramadaan ay tahay oo cirkaas wadada saaran oo ii saaran yahay candhada bash $8,000 baa la yiri baa lagu sameeynaya masaajid baan iska galay wiil soo aray masaajid ya id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim ya عبد أبيق وهو عرري مركا ولا سوعلي ما يدين كده يرينا إيه وحويري وحنق سوق المساجد أول هوين رمضان بين نقطة مغرب كمان ماشي اسكيجتو كذي عشيه بالي وحلا يتراويح بالي تكنيها وهابينك رئيس رمضان ضد مسلمين عن ماشي وين ويل باتو جنيه هذا صور رقح فاضي إنما هو فديان موبل بوكا آخرنا يا قرآنك موبلكو كاخرنيا تراويح بتوجينيا هل حافظكم اجر ماشاس اسغو موبلك كتوجينيا بو قلديا بير قداشان تاغنا حسابك صدحات بان كجيرا 2 jeer baan سوره البقره bilowgeeda saxay afar tiraq umarka tukanay baan nin safka hore ku jiro min daa gudiga masjidka odayaasha wuxuu walaal ninkan quraanka saxayo walaalo xaafid baa tahay markaas alxamdulilah waa xafisana waa kale afarta dambe soo gal buu yiri natuji isaguna waxa weeye codka hadde yani al-imam al-husari Allah yarhamu kama garanaysid codkiisa uu soo galay afarta ragcaan tujiye uu yiri witirkii baan tujiye markaan salaadii ka baxnay jilbaha qabso arsheekho ilaahay noo ka keenay arna tuji arxaga u socota waxaan yiri wadaan saarnaa geel baa ii raran قيل بايرن اي مشغولين ولا لو نلجو ونوجد حالك رمضان كليا نغاسا تراويحنا نتوجي وحا ربطان كسينينا خوله وحا دونتان كسينين بابور با halkan igaga jabay safar baan ahay nakan beera horta martibata hotel kan sax subaxdi gaarigi bay geeyeen gaarigi uu ninkii warshadii weydiiyay war maxaa lagu sameeyaa gaarigan soo jiido warshada geeyay 8,000 baa lagu sameeyay jeeg buu ninkii u gooyay wuxuu yiri sameeya gaarigan horta baliga wareegaysa iga reeb nakan macallin كرامة القرآن موجودة نوصي أتصل يا يوحوا رادين جاكي بوجو يسدتكم بق وحير هرت سمية قارئة إن كان hotel كانوا يدجيب قارنا وإيه كانوا يسو كريه وحالي بس أيامها نتوجي صلاة نتوجي تورها نتوجي نمكي ويا لو بيشي مع الله دميستي بيشي مرقى الله دميست بيشان كونوا $1 سوريا هنا إيه كان وحير هذا شاخو نلجو قريبا كسينينا waxaan ku siinayna waxa doonto mushahar fiican baan ku siinayna $2,000 salaada jahriga iyo natuji dadkan quraanka bas inta kaliya wax kale aan sameyn waan ka tagay wadid ala kulli hal ana soo jabay 2 sano oo deyn qaba baan ka soo noqday quraankii ku soo noqday marka ilaahay soo celiyay waxba la tusay marka waxaan idin leeyahay la tamuddanna aynayka ila ma mata'na bi kama keenaysan haddaan idin sheegaya hadday idin damac geliso isli daarada dheer laga dhisaa ogaa kontraagyaa la galaa suuqyaa la galaa ka shaqeysta wax dhiman ma laha
laakiin ammaanadii ilaahay idiin dhiibay oo laabtiina ku xifdiyey inaad bartaan oo barataan oo ku cibaadaysataan buu ilaahay idiin siiyey idin ma siin inaad dadka waa badan yihiin dadka suuqa ku jira waan ammaanadaas la siin oo aan kitaabkaa la siin oo aan laabtooda lagu xifdin waa badan yihiin muslimiinta marka adiga waa lagaa soo doortay adduunyaha ku raadin dad madaxa iyo dad siyaasad ku jira iyo dad ku jira maxaan kuu sheegaa adduunyo kale magac waa garanaya xataa kuwa siyaasad ku raadsaday magac iyo jago ku raadsaday qur-aanka uga tegey ma ku soo sarin marka anigu waxaan idin leeyahay wixii ugu weynaa baa ilaahay idin siiyey ilaaliya oo bara xadiiskii maanta dhan laydinku akrinaya khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu cusmaan ibn cafaan baa wariyey radia allahu canhu soo maaha yaa ka wariyey taabiciga ka wariyey magaranaysa abu cabdiraxmaan asulami abu cabdiraxmaan asulami xadiiskan keliya kama warine qur-aankao dhan buu inooga soo xambaaray oo cusmaan waa dad ka soo wariyey qur-aankan inuu ina soo gaaro saxaabada dad ka soo qaaday waay wuxuuna yidhi xadiiskaas markuu warinayay hada aladii aqcadanii hada almaqcad kursiga wuxuu fadhiyey baa lay tiirka kuufa 40 sano buu fadhiyey qur-aanka barayay abu cabdiraxmaan asulami xadiiskaasaa i fariisiyey buu yidhi halkaas aada u jeedaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aan kariimka ah nabigiisa calayhi salaatu wasalaam oo waxyigan qur-aanka lagu soo dejiyey ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu mana sheegtay walaqad aataynaaka sabca min almathani waalqur'aan alcadiim buu yihi ilaahay subxana wa tacala nabigiisa markuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka cadiimka ah uu siiyey wax laysa siiyo waa wixii ugu weynaa wey uuna siiyey nebigiisa calayhi salaatu wasalaam uu dadka ugu jeclaa axabu khalqi illaahi ila allahi faacطaahu alqur'aan alcadiim walaqad aataynaaka sabca min almathani waalqur'aan alcadiim markaasuu wuxuu uga digay khatarta arrintaas ku wajahan iyo qofka nicmadaa la siiyey inuu ka digtoonaado taasoo ah inuu inta qur-aanka ka tago nicmadaa weyn ee la siiyey ka tago minadaa weyn intuu ka jeesto uu adduunyada indhaha la raaco marka aayadda ku xigtaah buu uga digay maxaa ku xiga walaqad aataynaaka sabca min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamudana caynayka kuma habboona oo uma qalanto kuuma qalanto adoo lagu siiyey qur'aanka cadiimka ah kuuma cuntanto oo kuguma habboona ya inaad indhaha u taagto adduunyada la qurxiyey inaad indhaha u taagto oo wax weyn moodo oo ka weyn midkan lagu siiyey laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum zahrat alxayaati اdunya laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum walaa taxzan calayh ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaan anigu u dardaarmayaa quraa'da cusub iyo kuwii hore iyo kuwa soo socdaba inaan qur-aanka weyn ee la siiyey inaanay adduunyo indhaha u taagin adduunyadu hortooda soo maraysaa dad haysta bay arkayaan dad ku mashquulsan bay arkayaan macmacaankeeday arkayaan dhaldhalaalkeeday arkayaan waxaan idiin sheegayaa aniga tajribadayda khibradayda keliyahoo kooban 40 sano intii dacwaddaanaan ku jiray ma aanan arag qof inta qur-aanka ilaahay siiyey oo beri jiray oo bartay oo markay adduunyadii oo quruxsani soo hormartay xaggeeda aaday qur-aanka majliskiisiina ka kacay oo adduunyo ku liibaanay ma aanan arkin oo ku guulaystay ma aanan arag indhaha ma saarin qaar waxaan ogahay hadday majliskii qur-aanka ka kaceen
ya si fiican u dhegeysta nimankiina qur-aanka xifdiyey oo haya iyo macalimiintiina si fiican u dhegeysta intay ka kaceen majliskii qur-aanka yidhaahdeen halka ii joog bal xoogaa aan soo shaqaystay adduunyada sida dadku u shaqaysanayo macnaha maaha camalka inuu xaran yahay oo aan sheegayo laakiin waxaan sheegay inuu adduunka kaga mashquulo qur-aankii kacay oo istaagay oo 20 sano 15 sano 30 sano weli adduunyadii baadi goobaya majliskiina aan ku soo noqon adduunyada aan soo qaban bana qaana tobanaan iyo boqolaal baan garanaya haddana waa idiin sheegaya adoo ilaahay dadka ka soo soocay suu sheekh dr maxamed yiri dadku ka soo thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina wala doorti iska qof walba iska siiyo inaad kitaabki ilaahay laabtaada uu ku xifdiyo waa doorasho lagu doortay doorashadii marka inta diida ka tagto aad meel kale aado haddaan idiin sheegayaa ma keenaysaan laakiin isaga haddaad u adeegtaan oo ku sugnaataan lugihiina imaanaysaa iyadoo socota adduunyada lugihiina kaabihiina hoostooday imaanaysa iyadoo daliila atathu dunya wa hiya raghima anagu inta kaliya aan kula dardaarmaya